بسم الله الرحمن الرحيم شرقدونك اسمها إرجوينك مرتي شرفته هي جوب جوجياشة شركان تاريخية وعينين إلا وبلوضة يا ديرات هل كوجوني سيرين كنا تحن عين وحندي سوتشيدين يا ما هاد علل هي صران ديرن قلبك كسو قاضي waxa ii nasiib wanaaga maanta anigoo muddo dheerayd oo aynu shirkaan wadnay joogay oo maalmo yar oo aan maqnaa kaliya ka maqnaa taasoo caafimaad awga aan meel u gaaray waa maanta waa maalintii iigu horeysay oo aan shirkan hawal u soo jeediyo waxaan u malaynayaa inay ahayd wax loo baahan yahay waxa wanaagsan dadka waayeelka ah muranka tira badan inayan gelin waxaana wanaagsanaa dastuurku inuu inoo meel maro oo inoo fulo mar haddii haddaba maanta aynu joogno gabagabadii shirkeenna haddii sidii qoladii musharaxnimada loo magacaabay siday soo jeediyeen waxay la tahay maanta waxay noqon doontaa maalintii ugu dambeysay si rasmi ah shirkeenna waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dadweynaha degan gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garowe iyadoo ay la jiraan isimadooda odayaashooda maamulkooda iyo dhammaantood muwaadiniinta ku nool magaalada waxaan u malaynayaa dadka qaar baa jecel inay taariikhdooda ka sheekeeyaan waxayse ila tahay inaan loo baahnayn inteennaan meesha fadhidaa way isnaqaan nin walba ninka kale ama garwar gabadha kale waa taqaan حتى الرجل يقبلوه هنا ويسكرنيا مركا هيجا فلانينا إن أنا إسأمانه أما إن تاريخ ذاك الشيء وعافي عن قفك التاريخ صدقك لين كشيء يعني يسووا إنه سيدين إسأمانه يوفانيا وشيء وتاريخي سه لو ما بحنا وحلا جاي ومركو يسكر التاريخ ويبغى يسكر ما عرفت الشغلة كتر وكبحه وحكم مدداشين وكنكتا isaga taariikhdiisa iyo wax noocaas sida adduunku u badan yahay waxaan inta raacinayaa waxa weeyaan waxaad iga codsateen walaalayaal waxa la iga codsaday inaan soo jeediyo khudbad gaaban khudbadaasina waxay ku salaysmi doontaa iyadoo kooban waxa weeyaa haddii doorasho dhacdo oo aan noqdo ninka ku soo baxa anigu waxa ay ila tahay inay wanaagsan yihiin in dalkan loo qabto oo taasi hadda waa ballanqaad waxayse u baahan tahay inaan kulligeen ka shaqayno oo gacmaha inagu isaysanna ka shaqayno mustaqbalka dadweynaha aynu ka dhalanay iyo dalkeenna waxa ay ila tahay barnaamij tifaftiran oo ballaaran waxaa laga rabaa keeni doona baarlamaanku markuu dhismo ama golaha wakiiladu markay dhismaan program qorshe siyaasadeed iyo mid miisaaniyadeed iyo mid nooc walba ah markii aynu dhisno laamaha dawladda Puntland la horgeyn doono waxaan rajaynaynaa wixii la horgeeyo in baarlamaanku si adag uga doodo wixii danta ku jirtana inuu qaato wixii kale markaa in la saxo hadda adduunka dhan sidaas u yeelaa waxaan idin dul marayaa haddaba programka isaga oo kooban oo haddaan balbalaariyo warqadu waa tiro badan tahay waxay iga qaadanaysaa
muddadaa dheerna ima ogolidin waxaan jeclahay marka ugu horraysa inaan xuso ma suuragal ma tahay intaynu dawlad dhisno inaynu markaa iska aaminno in nabadi dhacday oo markaa aynu isnidhaahno difaac adag iyo amni gudaha adag uma baahnidin waxaad mooddaa inayna suuragal ahayn anigu waxaan qabaa dawladnimo iyo gobonnimo waxaa lagu dhaliyaa laguna ilaaliyaa waxa weeye waa awood difaac iyo mid amni oo ku filan waayo haddaynan sidaa yeelin waxaa imaan karaysa maadaama aan Soomaaliya weli ayan dhammaan dagaalkii sokeeye waxaa dhici karta sidii Baydhabo kale oo intay maamul dhiseen iska ilaaway difaaca iyo amniga gudaha inta layna ku soo duulo in layna qabsado waa suuragal markaana dawladdan dhisnay iyo istaydkan dhisnay waxaa suurtooda inay markaa socon waayaan waayo haddii meesha inta lagu dagaalamo layna qabsado waxaa adkaanaya marka dawladdaas inay sii joogto waayo laba dawladood oo midna xoog wax ku qabsatay midna ay sharci ku dhisantay isku gobol kama suura gashay inay xukumaan waxaan haddaba soo jeedinayaa kuna nuuxnuuxsanayaa hadhow baa la ballaarin doonaa shuruuc loo samayn doonaa si uga hagaagsan looga fakari doonaaye inaan shirweynahan xusuusiyo in difaaca iyo amniga guduhu ay tiirdhexaad u yihiin daamaanna u yihiin dawladda aan dhisayno ee Puntland adduunkoo dhammina waa caynkaas waxaa loo baahan yahay amniga aynu samayno ee gudaha iyo difaaca goobaha hore ee laga yaabo inaynu dadaynaan isjeclayn daris kala nahay waxa ay u baahan yihiin ciidanka isaga ah waxaana yala tahay in dhibaatooyin kale ay iska jiraanoo laga yaabee inaynu yar waxyaabayna xandhibaan laakiin waa lagama maarmaan inaynu waxqabadka dawladda dhismi doonta ugu hormarino difaac iyo amni gudaha gobonnimo laguma hanta wax kale taawun baa lagu hantaa haddaynaa sidaa yeelina haddaanigu waa ka digayaayo hadda ogaada anigu ilaa yaraantaydii mar dambaan dhinacan siyaasadda u bayray waxaan soo ahaan jiray nin caskariya oo in badan dagaallo badan galay oo dagaal Soomaaliya ay gasho aan midna ka maqnayn marka laga saaro burburkii bilihii hore marka Ethiopia ku xirnaayo ma joogin laakiin dagaalkii 64 waa ka qayb galay taliya urur baan ahaa dagaalkii 77 sideediina waxaan ahaa jahada koonfureed ee Ethiopia ciidankii qabtay yaan taliya ahaa marka ninkii dagaalami jiray oo dagaal yaqaan waa og yahay inuu u baahan yahay si loo xushmeeyo oo dawladdiisa u dhistay iyo dalkiisa looga boqo waxa damaanka wahi inay yihiin difaac adag iyo amni gudaha oo adag waxaa haddaba loo baahan yahay ilaa inaynu hawshaas marka shirkaani dhammaado ka dhigno tan ugu horraysa ee xukuumadda dhalan doontaa ay qabanayso waxaa la yidhaahdaa markii dugsiyada sare iyo jaamacadaha militariga wax la iska barayo waxaa la yidhaahdaa haddaad doonayso inaad nabad hesho waxaad yeeshaa difaac laga baqo lahaw waayo difaac laga baqo ninkii leh laguma degdego waa wax iskuulaadka militariga oo dhan lagu dhigaa oo ninkii iskuulaad waaweyn ee militari ka soo baxay uu og yahay
waayo istaraatiijiyada sidaa ku dhisan waxaan jeclahay arrinta difaaca inaan intaa kaga baxo waayo hadalka koob baa la yidhi iyadoo tifaftirana waa la qori doonaa haddee waxaana loo soo bandhigi doonaa baarlamaanka sidii aan markii horeba ballan qaad waxaa weeye haddaynu rabno inaynu dawlad dhisno waaba dhisaynaa haddii alla idmee dawladdu iskama dhismi karto haddayan helin imkaaniyaad ay ku shaqayso oo adeegsato oo markaa dalka ay wax ugu qabato kuna daafacdo waxna ugu qabato waxaa markaa lagama maarmaan in aynu samayno ilo dhaqaale oo gudaha dalka ah iyo baadigoob ilo dhaqaale oo mucaawino dibadda labadaba haddaynaan inagu isxilqaamin oo aynaan shantaa gobol ka soo saarin maaliyad dawladdu ku shaqayso difaaca iyo amnigu ku shaqeeyaan dadka hawsha qaban doona oo shaqaalaha waaweyn ay ku shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay inaan abuurno si degdega ilo dhaqaale si lagu sameeyo isu sheegi mayno waa naqaan dawladaha u xoog weyn adduunka waxaa lagu sheegaa maanta inay tahay dalka America dhaqaalaha ay ciidamada intaa farleego awooddaale ku dhistay oo yacni casriga ah male iyadu hanti ay iyadu leedahay malaha waxay ku wadaa waxa weeye waa cashuurta ay dadkeeda ka qaato hadda ciidana America inay caawiso ilama 8 sano baynu soo maray 8 sano oo burburjeey aynu soo maray dadkii wuxuu iska niyeystay dawladda ama ha jirto ama yey jirin wax cashuura la isagama baahnee waa xaalku saas isaga soconaya sida ma ninkii xoolo leh wuxuu u baahan yahay wuxuu ku ilaaliyo xoolihiisa wuxuu ku ilaaliyo qarannimadiisa iyo sharaftiisa wuxuu ku ilaaliyo ubadka soo kori doona mustaqbalkooda buu u baahan yahay waxaa loo baahan yahay anigu haatan malihi dadka qofkan waxaysan ha bixiyo maaragtay xoolo ha bixiyo cashuur ha bixiyo laakiin dadka waxaysta ee baayac mushtariga ku jira waxaa lagama maarmaana inay gartaan wixii iyagu ay lahaayeen hanti ahaa inayan daamaan haysan haddayaan cashuur bixin oo ciidan amni iyo mid difaacba lagu dhiso dawladduna ku shaqayso ilaha dhaqaaluhu siyaabo kala duwan bay ku imaan karaan waxaynu inagu leenahay dekado haatan intaan Puntland dekad quray leedahay ayrobooraynu leenahay dayuuradaas soo dega kana duula waxaynu leenahay dad hanti haysta waxa loo baahan yahay waxay iyagu qaadi karaan oo qaadir ku yihiin oo bixin karaan dadka waxaysta cashuurta in lagu saleeyo awoodda qof walba oo hadba wixii uu bixin karo iyo waxaanu bixin karin waa in la kala ogaadaayo haddii la saaro waxaanu bixin karin oo xad dhaaf ah si dakhligu u bato waxa imaanaya dhaqaaluhu waa curyaamaya waxa istaagaya baayac mushtariga ninkii wax lahaayoo dhamina waa masallifaya cashuur iska saar marka maahe waa in wax qiyaasan oo qof walba awoodiisa ku dhisaalaysan waa inay cashuurtu noqotaa 8 sano dadkii baayac mushtariga ahaa 8 sanadada burburku jiray dadkii baayac mushtariga ahaa kama suuragelin cashuur bixin la'aan awgeed inay tujaar noqdaanoo ay xoolo yeeshaan balse iyagoo aan waxbana bixinayn badanaaba waxaa dhacday in ay masallifaanoo maanta waxa u haystaa ay yihiin wax yar mar haddii aan cashuur bixin lagu masallifayn imkaaniyaad leh oo wax qaban kara waxaa kale ee loo baahan yahay inaynu wax allaale wixii hanti ah oo ay dawladdii hore lahayd qaranku lahaa dawladii ma lahayna qaranku lahaa wixii gobolladeenna ku sugan waxaa loo baahan yahay gacanta dawladda cusub in lagu soo wareejiyo hadda hanti badanna wadamada gobolladeennan lama gelin jirinoo waddadaa wareejiyo
hadda hanti badanna wadamada gobolladeennan lama gelin jirinoo waddadaas iyo dekadda boosaaso in yar yacni la dhisay oo fayskii koowaad keliya la dhisay ma ahe hanti kale oo meeshaa tiil ma jiraan oo gobollada qaar ba layska ilaawayo dawladihii hore ayaan u qabin inay dalka ka tirsan yihiin gobolka barina waxaaba waagaa loo bixiya gaari waayo ninkii disibliinka iyo waxaa ku xun waxaa loo bedeli jiray bari isna wuxuu niyeysan jiray in la masaafiriyey haatanna gobolka bari weeye lafdhabarta dhaqaalaha puntland sida runtu tahay waxaana weeye intaa yaroo dawladihii hore ay qabteen waxaynu kaloo ognahay in waddankeenna ay ka dhacday waxyaabo badan oo sharciga ku xadgudbaya ee aan wanaagsanayn waxaynu ognahay wixii degaanka la xidhiiray degaanka wixii la xidhiiray ma aqaan degaanka in degaan loo wada yaqaan iyo in qofba si u fasiranayo waxa weeye waa environment waxa la yidhaahdo waxaa dhacday dhirteennii oo dhan in la jaraa la gubaa dhuxul ahaanna loo dhoofiyaa taasina waxay dhalinaysaa haddaan lays hortaagin in waddanku uu xaalufo dabeedna uu saxaro noqdo markaana in roobku yaraado dadka iyo duunyadaba markaa inay khatar galaan arrintaa iyada ah dekadaha laga dhoofiyo waa la yaqaan marsooyinka laga dhoofiyo dhuxusha waa la yaqaan waxaynaan aqoonay ma jiraan oo ka warqabin dad awalta cayraha yaa maanta waxay ka taajireen dhirtaa ay gurayaan gubayaan dhuxulahaanna u dhoofinayaan arrintaasi waxay u baahantay in lays hortaagaa arrinta kale ee ka sii fool xunoo jirta oo la xalaalaysay iyadoo xaaraana waxa weeye waddankani nidaam buu lahaa ma dhici jirin xoolaha dhadig ari iyo geel iyo lo mid doontaba ha noqdeene ma dhici jirin in la dhoofiyo oo dalalka innaga xoolaheenna qaata oo hilib ahaan u qaata in loo dhoofiyo wax maaragtay macquula maaha hadday iyagu xoolaheennay helaan dhadig iyo labba haddee waxa weeye dalalkooda xoolo ku filan bay yeelanayaan hadhowna xoolaheenna cid qaadataa jiri mayso waxaaba dhacday inaan intaa lagu dayne ugaadhii nooc kasta ay tahay iyo bahallada dalkeenna ku nool ilaa dabagaalle waa la wada yaqaan bayla tahay in la dhoofiyo in masaskii xataa la dhoofiyo in wax walba oo waddankaa yaal la dhoofiyo waxaa ka sii horreeyana waxa weeye wixii waddanku lahaa oo hanti ahaa oo warshado iyo maaragtay ahaa gaadiid iyo hantida maguuraanka ee guryaha iyo waxa noocaasa iyo dhulka iyo beeraha in hadda ka hor inta la furfurtay la dhoofiyey oo dalal shisheeye la geeyey oo markaa lacag laga helay lacagtaana in loo isticmaalay dagaal la doonaya in kulligan layna ku qabsado waxaa haddee sameeyana magacooda looma baahno waynu isla wada garanaynaa waxayba seelo tahay sharcigu ilaa uu mayo dadka waxaa sameeyey markii qarannimo buuxda iyo midnimo ay Soomaaliya la soo noqoto wali uu wuxuu geystay waxay la tahay waa laga waajib marinaya waxa kale ee yana jirta in badaheena badda xeebteenu intay dhar leegtay inuu isla naqaan malayn maayo markii saddexdaa gobol ay ahaayeen waqooyi bari maanta waa Puntland xeebta ay leeyihiin dharkeedu wuxuu ahaa 1300 kilomitir haddii haatan Puntland aan noqonnay haddii gobolka Sanaag inta xeebtu dhar leegtay maaqaan laakiin kulli 100 kilomitir waa noqonaysaa ma laba ma saddexba ma laba iyo barba garan maayo runtii waxaan aqaan magaalada Laasqoray iyo Boosaaso oo labadaba xeebta ku yaal waxa u dhaxeeya 120 kilomitir waxaan u maleeyaa xuduudda waliba inay ka sii shisheeysaa in badan oo rag yaqaan baa meesha fadhiyo oo reer Sanaagee haddii 200-300 oo kale lagu daro waxay noqonaysaa xeebta ugu dheer ee Soomaaliya ay leedahay walow Jubbaland ay degan yihiin dadkeenu
iyaduna ay leedahay 500 kilomitir 3,300 kilomitir la sheegi jiray intoodii badnayd dadkan isku isirkaaba haddaba gacantooda ay ku jirtaa waxaana ugu xeeb dheer markan waa gobolkan Puntland waaynu dhisaynaa badda xeebteena waxaynu ognahay laba waxyaabood oo fool xum inay ka dhacaan laba arrimood oo fool xum inay ka dhacaan mid waxa weeye warshadaha dalalka hore maray wixii haraadiyaha oo ka xumaaday iyo wixii maaragtay inay dadka binaadmiga iyo xoolaha waxyeelaan laga dhowrayay maadaama inaan dawladda xalahayn waxa burburiyay waxa weeye wadalka warshadaha badan waxaanay ku daadiyeen sun iyo waxyaabo khayraadka baddeena waxyeela dadka iyo dunyada biriga jooganay la xeebtii wada joognaayeen waxyeela taasina waa arrin kale fooxun oo loo baahan yahay dawladda dhalanaysa inay soo taagto waxa kale badda ka dhacday dad ajnabi ah oo tiro badan oo badahoodii kalluunka ka dhameeyay iyo khayraadkii baddooda inay 8 sano burburku jiray ay ka shaqaysanayeen xeebaheena iyagoo aan haysan ruqsad haysan cidina la ogeyn mararka qaarkood walaw ay dhacdo dad madaxda ka mid ah warqado qarsoodi inay u sameeyaan oo ma qanarigu dantay ku wataan cidna wax ka sheega ma rabe taasina waa dhacdaa waxa loo baahanayaa markaa xeebaheena daafaca inay ku jiraan ilaalinta inay ku jiraan maraakiib yar yar oo dheereeya ama doonyo yar yar oo dheereeya oo saaran yahay xeebta inaan ku ilaalino oo waxa baddeena lagu sameeyo sortaagno laga maarmaan weey arrimaha bulshada haddii wax yar laga taabto waxay ila tahay inaynu wada ognahay 8 sanadood oo burburku jiray aynu joognay goboladan ama qaarkeen meel kala joogay waxaynu ognahay dhalintii yaryaray iyo kuwii 8 sano gudahooda dhashay inaan midna helin tacliin haba yaraatee hadday jiraan iskuulla aan badnayn oo si dirqiya ku socda oo elementaryga ah waa waxaan weynayna wax tarahayn weey waxaa markaa soo baxaya 28 ka horeysana dadku wax ma baran waxa uu la qaadi jiray isloogano dawladii markaa joogtay lagu amaanayo ardadana heesaha la bari jiray wax la bari jirin markaa 30 sano aan soo dhaafnay gaab baa jira ama meel daloosha oo xagga tacliinta ah oo dadkeena ku dhacday hadhowna markii gobonimadii laga soo noqdo waa la dareemi doonaa arrintaasi dhibaatada ay leedahay waxa markaa loo baahan yahay inaynu haddii dawladda Puntland aan dhisno iskuulaadkii aan dib u soo noolayno ardadiina wax baro dadkii waaweynaa xataa inaan wax baro waayo waxa camal laga dhigtay waa dagaal wax soo saara iyo wax bara midna lagama shaqeeynin muddadaas waxa kale wadanka ka maqan taqaatiirtii wax garanaysay oo dadka daaweyn lahayd waxaan kaloo lahayn qalabkii wax lagu dawaayo isbitaaladii qalabkii xataa sariirihii waa laga qaatay meesha waxa ka jira dhibaato aad iyo aad u culus in gacan weyn loo geysto tacliinta oo sare loo qaado ilaa heer jaamacadeed dadkiina loo suura geliyo inay wax bartaan waa laga maarmaan qofkii haatan waa yeela oo 30 sano ka hor meel dhaxaad ahaa oo aan wali wax baran isaga qudhiis wax barashada u baahan yahayo dadka da'daana hatta way wax la baraa inta yadii horay wax soo baratana waxay tahay waxana lagu celin doonaa wax barasho hore leh iyo tababar hore leh waayo 8 sano xabad baa socotayo ma baanan xusuusan in hadhow loo baahan doono dad aqoon leh wadankeena jira waxa kale jira waxa weeyaan arrimaha caafimaadka aad iyo aad bay khatar ugu sugan yihiin dadkeenina wuxuu dhamaanayaa dawladaan dhakhtar la'aan iyo qalabkii dhakhtarradu ay ku raadin lahaayeen cudurka dadku qabo oo aan lahayn waayo
markii hore wixii yiilna waa la gurtay wax dambana ciidana ka taageertay maynaan helin innaguna awood aynu wax kaga qabanno xagga caafimaadka dadka iyo duunyada labadaba maynaan helin waxaana loo baahan yahay arrintaasna in xoog weyn la saaro oo dadka iyo duunyadaba caafimaadkooda aynu wax ka qabanno waayo haddaan dadku caafimaad qabin duunyaduna caafimaad qabin waxa weeye dee baabaa dhacaya nafleeyii oo dhan baa dhibaato gaaraysaa waxaan anigu ogahay runtii isbitaalladu inay takhaatiir lahayn waayo 10 jeer baa aniga cudurraana qabin laygu sheegay haddaan isbitaallo wanaagsan oo qalab fiican haysta tagana waxaa laygu yidhi war takhtarra ma ahay nimankii ku arkay yaa kugu yidhi waad xanuunsanaysaa malaria layga sheegay malaria waa layga sheegay wax la yidhaaho tayfo waa layga sheegay bahalla calooshaada ku jira waa la yidhi jinni iyo jaan baa la ii sheegay waxaana markii dambe ay soo baxday waxaasoo dhan inaana qabani waxay waayihiin gastrik oo caloosho keliya ah markii aan xanuunsadaba waxaa cajaa'iba dadku waxay u qaataan xanuunkaasi inuu ka imanayo beerka siinamo baa layga dhigatay markii aan soo noqday dalka ku soo noqday sidii siinamadii la geli jiray la daawan jiray baan noqday waxaan marka dadku ogeyn beerka iyo xubin kasta oo ka mid ah jirkiisa in la bedeli karo dabeedna qofku uu noolaan karo maalmo dhaweyd aan doodaynay oo anigu ma hadlina intiina kala hadlayseen madaxweyne maxaa shardi ah waa inuu kan yahay waa inuu noqdaa midaan dhimanayn ma madaxweyne aan dhimanayn baa jira madaxweyne iyo xataa boqor iyo cid aan dhimanayn ma jirtee waxaanse idiin sheegayaa dadkii ii dardaar warinayay oo caafimaad qabay markii aniga beerkii xumaaday layga bedeli doonay kulli aakhiri jiraana waa dhammaadeen waxaan ogahay nin aanu saaxiib ahayn la sameeyo oo shaqo la abuuro oo dad badan la shaqaaleeyo oo dadku waxay ku noolaadaan ay helaan laga marmaan weeye waxaa kaloo loo baahan yahay in wax laga qabto dhaqanka iyo ma kala haraan arrimaha bulshadii caafimaadka iyo tacliinta iyo shaqada shaqa abuurka keligeed maahee anigu waxay la tahay burburka dhacayana ku dhacay 8 sannadood oo haatan dhammaanaya waxaa ugu daran oo aad iyo aad ugu daran waxa weeye waa dhaqanka Soomaalidu dhaqanka ilahaan jirtay waa burburay dadkii waxa laga saari waayay yani waxyaabaan loo baahnay waxay iska xalaashadeen waxa laala wixii xaaraan ahaa tuugadii caawa haddaynu dawladda dhisno si loo helo shaqaale ku filan oo hawsha lagu aamino oo wax qaran ku leeyahay loo dhiibo anigu ma aqansaynu ku heli doono waa saadagta dadkii waxay noqdeen qaar iska xalaalaysta hantida dadweynaha taasina waxa weeye mid aad iyo aad u dhaawacaysa jiritaankeenna iyo dawladnimada aynu tiigsanayno waayo shacab dhan oo wada tuuga haddii cidina wax kuma aamini karto waa ka xumaa inaad saa idhaahdo ikhyaarta horteeda laakiin inaan isu sheegno wixii jira waa inaan la kala xishoon waa laga maarmaan beelata haddaan wax ka taabto siyaasadda arrimaha gudaha ee Puntland waxaa dhismaheedu inaanu ahayn targetka ugu dambeeya oo aynu tiigsanayno oo himiladeenni oo dhammaan intaa tahay waxaa laga maarmaana inaynu Soomaaliya sidii gobonnimadeedii loogu soo celin lahaa loo midayn lahaa iyadoo jamhuuriyad ah oo markaa laasim nooca ay noqon doontaa waxa weeye waa jamhuuriyad federaali ah sida hadda socota inaan dib u soo noolayna loo baahan yahay